aynu falanqeyno shanta war ee maanta ugu xiisaha badan ee wararka ciyaaraha. Haryayga kooxda Manchester United Ryan Giggs wuxuu muujiyay sida ugu soo horjeedo in Cristiano Ronaldo uu ku guuleysto abaalmarinta goolkii ugu fiicnaa tartamada Yurub ee xil ciyaareedkii la soo dhaafay. Ma garanayo sababta loo caleema saaray gool kale, isla markaana la isaga indha tiray goolkii Bale. Aniga ahaan wuxuu ii ahaa goolkii ugu fiicnaa ee taariikhda aan arkay, ayuu yiri Ryan Giggs. Sergio Busquetsna wuxuu qandaraas cusub ugu saxiixi doonaa kooxda Barcelona ee ka dhisan gobolka Catalonia toddobaadka dambe. Heshiiskaasi oo gaaraya ilaa 2023 waxaana qandaraaskiisa cusub lagu jabin karaa aduu lacageed gaaraya 450 milyan. Liverpool waxay ku guuleysan rabtaa saxiixa Adrian Rabiot oo si bilaash ah ay ku qaadan doonaan xagayga dambe, waxaana ay la gaareen heshiis hordhac ah. ciyaaryahan Marcelo isna wuxuu meesha gabi ahaanba uu ka saaray in magaalada Madrid uu ka tagayo, sidoo kale uu faarujin doono garoonka weyn ee Santiago Bernabeu. wuxuuna yiri inta ka dhiman xifladeyda waxaan ku qaadan doonaa magaalada Madrid iyo Santiago Bernabeu. dhinaca kale kooxda Manchester United ayaa bartilmaameed ka dhiganaysa daafaca garabka bidix ugu ciyaara xulka qaranka France iyo naadiga Atletico Madrid ee Lucas Hernandez, waxaana qandaraaskiisa lagu jabin karaa aduu lacageed gaaraya 80 milyan. kuwa waxay hayeen shantii hadalhayn ee maanta ugu weyneed dhacdooyinka ciyaaraha. fadlan subscribe channelka adigoo ka mid noqonaya saaxiibada nagu xiran. mahadsanid.